الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم dhammaantiin walaalaha halkan iga daawanayo kulligiin waa idin salaamay salaan dabadeed waxaan rabaa inaan idinka dabageeyo si aan adduunka ugu daba tagno waxaan ku noolahay dalka Sweden waxaan rabaa inaan ka hadlo cashuuraha waxa sharciga ah iyo waxaan sharciga ahayn cashuuraha qodob ah iyo wixii sharci waxaan sharci ahayn dalkan Soomaaliya baryahan arrimo badan ka jiraan oo ah in cashuurihi la isku haysto iyo meelo sharci aanan ahayn oo la duminayo oo dawladda lagu eedaynayo runtii waa wax laga xumaado in dad guryahooda la dumiyo laakiin maxaa keenay in guri la dumiyo aqligeesa waaye runtii ma iga sugaysid horta inaan aniga aan dad ama dawlad aan garab ku siiyo wax xaqdara ah xaqdarana ma fiicna guryo la duminayo masaajid la duminayo aragnay dawladdu way naga aqli badan yihiin dad muslimiina maxaa la yidhahdaa madax ka ah xasan sheekh baa ugu weynaado aniga waxaan qabaa meelaha la duminayo waa meel ay dawladi leedahay ama dad kale leeyihiin kitaabkeena waxaana lagu sheegay wixii xaaraama inay xaaraam yihiin wixii xalaalna inay xalaal yihiin marka waxaana wanaagsanayn meel xaaraam ah in masaajid laga dhiso soomaalidu waxay tidhahdaa hal xaaraan ah nirig xalaala ma dhasho marka dhulka aad degaysid hadday xaaraan tahay dee waxa aad ku kor dhistana xalaal ma noqon karaan dee dhulkiyaaba xaaraana marka aniga fikir waxaan qabaa hadda kahor waxaan xasuustaa guri ku yeelay oo ugu yaalla magaalada Johor ilaa hadda dhisan aan dumini annaga iska dumin yacni waa duqoobay inaan dhagax ka dhigno meelna dhagaxu ka ahaa meelna cariishu ka ahaa inaan dhagax ka wada dhignaa rabay marka aabbahay la tashaday maadaama guriga aabbahay lahaa anigana aan dhisaayey aabba waxaan ku yidhi waxaan rabaa guriga inaan dumiyo hay dumiyo yidhi markaan dhisaayey waxaan ku yidhi aabba miya ahaa xoogaa guriga cariiri waaye marka 1 mitraan rabaa inaan waddada soo galo markaasuu yidhi aabbe hadda dawlad ma jirto waa ku 997 inay tahay malaynaa 96 meelahaas 97 u baday marka aabbay wuxuu igu yidhi aabbo inta aan leenahay xalaalay noo tahay waa soo shaqaystay ididkayga waaye laakiin 1 mitir waddada iskale annagana ma lihin waa xaaraam mana ku dhex dukan karno ilmihii lagu dhalana xaaraanay noqonayaan waxaas dhan xaaraanay noqonayaan marka naga dhaaf inteena noo barakay noo dhis wuxuuna igu sii daray haddii aan kuu oggolaado aabba haddii ay oggolaato maxaa dhacayaa eri wuxuu yidhi xaaraantii ka sukow ilaahay haddaana ka baqayn oo yidhi waxaa imaanaysa maalin waxaa imaanaysoo yidhi dawlad ka tarbiil wadato oo gurigii kuu dhisnaa dabaqa aad ka dhisaysid dabaq 2 dabaqaan raba inaan ka dhiso aad ka dhisaysid in dhinac laga cuno oo ka tarbiilku jijibiyo aa imaan doonta ugu yidhi dabcan aabbahay naxariistii janna allah ka waraabiyo wuu dhintay dardaarankiisana waa aqbalay gurigeenna weliba wuxuu yidhi 13 mitir oo ahaa may 12 mitir oo ahaa bar aa laga soo noqday jidka laga soo noqday gurigaanba soo galnayba meeshii waxaan ugu dari lahay barka ha laga soo sikado yidhi soo hadhow muran u imaanayba marka dawladdii way timid intaan la gaarin dawladda hadda dhalatay cabdiqaasina markaas xataa maxaa la yidhahdaa yimid waqtigaas kadib markaan dhisna kadib yimid maxamed dheeraa yimid maxamed dheeraa inta yimid ooba ka tarbiil wataaba wixiiba sharci daray wada jijibinaya Johor dhexdeeda marka guryahan la duminaayo iyo xasan sheekh loo saaranaayo iyo aniga xasan sheekh difaac uma yihiin mar walbana dawladnimadaan jeclahay waa u soo dhibtooday waa u soo rafaaday 4 sano aan mushaar la'aan ugu soo shaqaynay anoo caruur leh si dawlad loo noqdo marka dawladnimada wax weyn waaye dadkaas laga jijibiyo guryaha waxaan aaminsanahay inay xaqdarro ahaayeen markii horeba xaqdarro ay ku dhisteen
soddon sano shay boqol sano deganow haddii boqol sano ka hor gurigan adiga aadan lahayn ama dhulkan adiga aadan lahayn see guriga ugu dhisee see dabaq ugu dhisee see majaajid ugu dhisee qalad waaye taasaan aaminsanahay waa maskaxdeyda yar qalbigayga yar waxaan aniga aan usoo dagaalamaya waxaa ay dowladnimada oo usoo dhibtooday oo 4 sano mushaar la'aan u ahaa taas meeshaas ugu tagaa tan labaad waxaan leeyahay canshuuraha tusaale usoo qaadanaynaa si waddankeenna tusaalahaas aan usoo qaadanayo horumar kale waddankeenna horumar ah ula jeclahay waddankan FEC oo kale aan leenahay Swisha la yidhahdaa maanta waxaan arkayay shalay waxay ayd ma aqaanay laakiin maantaan daawada aniga wasiirka maaliyadda oo ka hadlaayo lacagaha canshuuraha la dhiibaayo oo ninka wax ka ganacsanaysa la siinaayo waxaa la yidhahdaa account oo dawladdu ku og tahay ugu shub laakiin ha ugu shubanaa lagu leeyahay maxaa la yidhahdaa tusaale ahaan gaarigaan aan leeyahay waxaa ku xiran baalkii lacagta lagu bixinayo waa kaasaa ku xiran shirkadda aan u shaqaynayo wax dhan meeshaasay galaayeen dawladda meeshaasay ka goosanayeen laakiin haddii mobaylkayga bahal swish la dhahayaa jiro oo FEC oo kale haddii igu soo dira aan dhaho maxaa dhacaya see dawladda igu arkeen ilaa qofka markuu ii soo fuulo haddaan dhaho bahalkan kuu daari maayo si lacag maxaa la yidhahdaa oo suuq madooba maxaa dhacaya iska easy waaye horta shaksiyan ada qofka kula socdo oo asaas dhehaysid ma taqaanid wuxuu yahay ma dharcada ma booliisa ma maxaa la yidhahdaa minishibi miyaa wax muu kaa duub waaya ma taqaanid waa baktiyaa nasiib haba iska ahaato laakiin maxaa ku xadaynaayo hal mar iyo 2 jeer waa xadi kartaa laakiin maalin walba ma xadi kartid sabab dadka Sweden la joogo la yaabayaan laakiin sababtaas oo cadaynaa sababtu waxay tahay bangiga aniga aan leeyahay kaarkayga waxaa la weydinayaa ama i weydinaayo soo wacayaan waxay leeyihiin baalka FEC-gan tirada badan bishaan intaasoo jeer ku soo dhacday cali jaamac warfaa joseph leena maxaa la yidhahdaa finista riyaala waxaasoo dad qaraabo maatiin maya see dadkaan kugu soo direen waxaan bangigaaba kugu dhagaayo bangigii kaarka ku sii aba sharciga ilaalinaayo intaan adiga haddii sharciga ilaali weysid war dawlad intaynan dawlad ku imaanin bangigii oo privat ahaa oo dad shaksi gaara ay leeyihiin waxaa ku dhahay sabab wuu kaa xiranaaba kaarkii dhan qartab lacagtii ku jirtay wixii oo dhan maca salaama waxaa ku leeyahay maxkamaddaa kuu soo amarto maxkamadda haddaad tagtay maxkamaddii dawladda oo lacagta intay kaa soo gasheen lagu leeyahay waa dhibaato weyn waaye marka waddankeena aniga waxaan rabaa isla xisaabtan inuu yimaado dadkan dabaqyada taaganaya dawladda ku jira tuugooyinka ah wax dhaco oo maanta anagoo tagsiilaha haddaan muqdisho ka dego wasiirnimo aan raadinaayo kabacdina aan dabaqyo taaganayo haddii aan helaba oo oday heblow iyo adeer heblow iyo haddaan ku galo marka dawladda waa inay musuqmaasuqaas ay la dagaashaa dharcadka ay badisaa waxaa la yidhahdaa dhibaato badan ka dhacdo marka taas waxaa noo sii dheer bangigii hadduu iga xiro oo yidhaahdo aad maxaa la yidhahdaa maxkamadda waxaa ii sii dheer waxaa laygala noqonaa oggolaanshaha baabuurkii aan watay aniga lahaa waa 2 baabuuraan leh hadda oo mid wiilkayga wado midna aniga aan wado kii wiilka taa waa la xiraa sababtoo ninkii iska lahaaba tuug nin tuug see loogu aaminaa waddanka way kaa wada xiraayaan mana shaqaysan karaysid xataa cimrigaaga ma shaqayn kartid tuug see meel loogu aaminaa lagu leeyahay lacalla iskuulaan rabaa inaan ilmo wax u dhigo ilmo maa lagu aaminaa adiga dhammaayo maxaa la yidhahdaa lacag xun dhacaay hadda waxaan maqlaayay nin saaxiibkayga maqlaayay oo wariye ah aan ka maqlaayay nin xaday 10,000 oo crown waa $1,000 waay
حتى سقال بقول $1 كل مرة ما يا هيلب حذي محكمة يحيى قان كارتي إني كاس المسافرية شرعي لقى نقص شرعي وينانو هايستا وسويد نكون ولا ولي سويد شاتاي أنا مركب مالي والبو أنت مخاي دكان مدينة عندنا لما بارو كاميرون كحرن لكن ناقت هذا وحديث هذا يقارن تما ضدك ما يشتغل هذا وحديث هذا يقارن كان جوخ ودي مان سبتو عسكري معه وحي يديك عندك ملقطة هاي ترتيب بوليس له وحيان ايش اللي قاعد في سنة قف كان وحيس ولا كينا هذيك أنا بيرتها كجرتا واي هذيك يوحواي نصيب كان مركز دولة دينا وحلقة ربع عيد اللفتر كذا ناس نظيف السوق ما سوق سكان نظيف السوق شعب كتوجة أكيد دكان له وحدا إلا أركو إلا قالوا النقطة هرتا حالي هذا شتى قالوا النقطة هذا ما بيستعجلوا مال المال الصومالي كدكتورنا ليرادو توجة من توجنا مسؤول توج محفظ إيدينا وضك مركا ضد كيسو وحكويه هي ضد كيسو وحكويه هي إن ضدك أنا اسمه ذي في نواي أنا توج نقطة هذا وضن كان ميجا أمينة والله وبالله طلع سنتكي عن سوق شقي وحن ديباي بالولب كن $1 ديباي وحسير سعلي ليري كن كله بالولب ويا حتى وحليق الربع إن اليو تطبيق طبعا كن $1 قياستي حلي العقد أخذتي أو شقيسي العقد لو تلقى وكلا بدين هذا حاجة شقيست أنا اللي ما هند waxaan shaqaystaa le maaha wadanka kula leh nabadgelyada la haysta fiir quruxdan aan baawur ku wato ya wadada da ku tusiyo waa yaabaysaa say u qurux badan tahay marka dhibaatada soo dhan waxa waaye in dadka daacad loo ahaado waaye lacagta ay shaqaynaysid iyo lacagta dawladda ay siinaysid same waaye haafa adiga lagu ogolyahay haafataa ma dhamo boqolkii 40 lagu ogolyahay haddii kor dhowboodo boqolkii 60 waxay ku bixaysaa shidaal iyo dawladda cashuuraheeda waana wax wanaagsan ma xuma wadankooda ay ku dhisteen wadankana barwaaqo noqonaa laakiin hadda dhiibay waxaa leedahay wadada maana laga qabto wadan 30 sano burbursanay meeqsana lagu dhisi karaa ugu 30 sano kala lagu dhisaa 30 sano soo burburinaysa marbo wax la cunaay koo korontada fiiqdo koo la miiriyaalka fiiqdo koo guryo islaameed dago oosan lahayn khayr rajayna barwaaqi bashbash halkaas ku soo gabagabeynaa marka ummadda horumartay aan ka mid noqono shidaal iyo waxba la helay la sheegay shidaalkaas dadka isku dilay ilaahay nagama dhigo ilaahay wadankeena nabad ha nooga dhigo wadankayga waxaan ka soo bartay qarash badan ay u soo baxay aabay qarash badan u soo beelay wixii aan aqoonay kagama shaqeeyo halkan darawalnimo kaga shaqeeyaa laakiin wadankaygi waa ii baahaya waa ogahay wax yar ay dhiman waxaan rabaa in oo nabad oo noqdo dhammaantiinba salaamaad kanaalka hadda ku cusub tahay subscribe dheh mar dhow shaqadeeda ku soo noqon doonaa wariinimo salaamaad dhammaantiin